Asalaamu calaykum. Sirdoonka Mareykanka iyo Kacaankii Oktoobar ee 1969 xukunka Soomaaliya la wareegay. La taliyay hore ee ammaanka aqalka cad ee Mareykanka Henry Kissinger ayaa warqad u qoray madaxweynihii Mareykanka Richard Nixon bishii Oktoobar 21 sanadkii 1969 waxaana kaga hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waa saacado ka hor intii uusan ciidanka afgambiga ku qabsan Soomaaliya. Waraqada oo Kissinger qoray oo ciwaankeedu yahay xog madaxweyne waxyaabaha ka dhalan kara qaarijinta ama dilidda madaxweynaha Soomaaliya oo ula jeedo madaxweynihii hore Cabdirashiid Cali Sharmaake waxay muujinaysaa in ciidankii dowladda Kacaanka ay ahayn rag aan marnaba sir ka baxsanin. Kissinger oo markii dambe noqday xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu qoray sidaan: xog kama hayno dilkii madaxweyne Sharmaake, laakiin waxaa jira qabaa'ilo Soomaali ah oo diidan qaabka dowladdii madaxweyne Cabdirashiid iyo ra'iisul wasaare Cigaal ula heshiiyeen Itoobiya. Sidoo kale waxaa jira beelo ka carooday doorashadii bishii Maarso ka dhacday Soomaaliya, laakiin ninka madaxweynaha dilay waa sarkaal boolis ah oo iskiis isku abaabulay. Ma filayno in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay diidaan xasiloonida lala gaarayo Itoobiya ay afgambi ku kacaan. Dagaalka la filan karo kaliya waa mid qabiil ah. Haddii ay soo baxdo in madaxweyne Sharmaake loo dilay arrimo qabiil ah ee aan loo dilin arrimo siyaasadeed, baarlamaanka wuxuu dooran doonaa madaxweyne muddo 30 maalmood gudahood ah. Dhammaan musharaxiinta safafka hore waa kuwa taageersan reer galbeedka, marka waxay sii wadi doonaan xiriirka nagala dhexeeya. Sidoo kale waxay heshiis Itoobiya kala gaari doonaan muranka xuduudda. Ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo toddobaadkii la soo dhaafay la kulantay wuxuu haatan ka sii duulayaa gobolka California isagoo ku noqonaya dalkiisa hooyo ee Soomaaliya, taasi oo abuurayso xaalad xasilooni guud. Haddaba waraqadan waxay caddeynaysaa in saraakiishii gacanka hogaaminayay ee la wareegay xukunka Soomaaliya sanadkii 1969 in aan wax sir ah ka fakan ama aan laga helin. Saacado kadib ay dalka qabsadeen ra'iisul wasaarihii waqtigaas Cigaal markuu Mareykanka ka soo noqday ee uu yimid magaalada Muqdisho waa la xiray.